magacaygu waa sadii sheegtay sabab shirgaraad anigu dhalasho ahaan markaan anigu dhashay reerkaygu wuxuu yaaleen magaalada Muqdisho odaga Abahay Allah ma xariisto dhakhtar xanaanada xoolaha ama wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ka shaqeeyay buu ahaa laakiin isla markiiba waxaan u soo guuray reerka loo soo raray magaalada Laascaanood waxbarashadeeda asaasiga ah dugsi quraan macallinka iyo quraanka ay bilaabay Allah ma xariisto Maxamed Diire Barcad waa dhawad dhintay ilaa iyo dugsiga sare waxaan ku dhameeyay magaalada Laascaanood markii dawladda Soomaaliya dhacay runtii anigoo iskuulkan ka baxay ku jira shaqadii qaranka oo markaa macallinka ah dawladdu dhacday 1990kii kadib burburkii Soomaaliya iska dhacay waxbarashada dhan iska burburtay waxaan xasuustaa ardaydii aanu gacanta ku haynay oo iskuulka sare Laascaanood Muuse Yuusuf waxaan ku qancin kar weynay war idin ma burburkan dhacay siyaasadeed iyo waxbarashadeena isma khuseeyaan ma marada dawladda dhacday waa kala yaaceen adu marka inta ka dambeysay waxa la galay dagaal sokeeye jaamacada ma jirin markaan sanadka 1990kaas waxaan u diyaarsanayn jaamacadii Soomaaliya aan ka qayb galo waliba aniga xilligaas ardayda darajada fiican ku soo baastay scholarship baa jiray oo nala soo bandhigay oo xilliyadaas waxaan Laascaanood u joogayba markii deeqaha waxbarashada soo baxaan inaan ka faa'iideysto aan baxo iskuulkii baa marka macallinkii maamulaha iyagu xaaji markii dalku soo burburayay macallimiintii heer jaamacadeed iyo wax walba wax ka carareen marka ardaydii ugu roonayd oo xagga waxbarashada ugu fiicnaa tusaale ahaan form 3 baan anu marka macallin u ahaa waxaan u hayay xisaabtii fiisigiska baan u dhigayay intii markii burburka dhacay dawladdii oo dagaalkii sokeeye iska dhacay waxbarasho lama sii wadin dadkii qaxay oo meel kale dhulkan goboladana kama uusan dhicin dagaal sokeeye waa jiray oo gobolada waqooyiga iyo SNM iyo Sool iyo Jiidaas ilaa Buuhoodle sanaag dagaal ba ka socday inkastoo markii dawladda burburtay dib u heshiisiin la galay oo shirarka nabadeynta ay bilowdeen markii dambe dhismihii Puntland la yimi iyo xilliyadan ba waxbarashada kala si kala u sii wata laakiin markii hore halkaas ay hawshu noo joogtay burburkaas hawshu ku bilaaban وهاج مركب بدك بعدي بربرها كبعدي وحب لعبة الشيء كذي إن مام الله سمي يقبل لذان هذا بنتل أنت اللي سكوي رادو إن بالله حل جا صور كاس قام قاعدة سيد الله وقلي إن دولة الله سمي يسيد شو وها صور كائن جي مركي أيد علي هرت شيء كذا أساس كبنتلان 98 بو جوليستي لكن واحد ترتي مركي sheekooyin ka horeeyay oo xataa madaxweynihii hore Puntland Cabdiraxmaan Faroole aan ka sheekaysanay aan maqlay garaad Saleeman baan anu oo ahaa xog hayn markii aan inta badan la shaqeyn jiray gacan yar oo ahaa marka xogaha iyo fariimaha madaxda rag mas'uuliyiintu soo dhaafsanayaan inta badan waan ka warheli jiray 1990kii markii burburku dhacay oo jabhadihii dawladda militariga la dagaalamayay dagaalkay wadeen iska bedelay dagaal siyaasadeed oo aanu dawladda ku ekaanay qabaa'ilkii Soomaaliyeed gobol reer wixii isku dileen waxa jirtay waraaq maxaa uu sheegay Faroole ay u soo direen madaxdii jabhadda SDF waxay ku soo hagaajiyeen Allah ma xariisto garaad Cabdiqani garaad jaamac waxay u soo jeediyeen in goboladan hadda Puntland la isku yiraahdo maamul loo sameeyo aduu marka xilligaas jawaab ay afkaradii ma aysan dhicin marka fikirka in goboladan intan loo sameeyo maamul fikir bilow abu ahaa oo ka soo bilowday ilaa 1990kii tusaale ahaan 1990kii shir boocame lagu qabtay boocame 2 oo mar labaad Maxamed Cabdi Xaashi loogu dooranay gudoomiyaha USP maamul lagu sameeyay anu waan kamid ahaa waa joogay hadal haynta kamid bay ahayd in maamul Puntland la yiraahdo goboladan ka dhaxeeya la dhisi doono rag badan oo waliba Maxamed Cabdi Xaashi ba fikirka dadka ugu waramayay marka in siyaasiyiinta iyo madaxda siyaasadda goboladan oo ay kamid tahay madaxda SDF iyo SNDU iyo USP inay sheeka ay wadaan oo isla og yihiin ay tahay way muuqatay laakiinse waxay ay lagu guuleystay markii oo iyada lafteeda fikirka dhiiri galiyay markii shirarkii faraha badnaa ee dib u heshiisiinta Soomaaliya dawladda loogu dhisay shirkii ugu dambeeyay Masar oo burburay
markaasi xoog u yeelatay shirkii Boosaaso lagu balansanaa oo burburay way lagu heshiin waayay shirkii u dambeeyay Masar 97 markii uu burburay ba arinta inaan laga maarmaan ay tahay laba ujeedana ay u leedahay qaabkii dawlad dhiska Soomaaliya loo waday oo loo raadinayay oo nimankii hubaysnaa ee gobolada Soomaaliya daan ciidan dooran xoog ku qabsaday in la isu keeno oo dhismaha dawladeed iyaga laga soo bilaabo inaanay suuragal ahayn waa la arkay burburkii oo sii dheeraaday iyo mandaqadan Puntland oo dhulkooda maamul weyn uu ka jirin haddana nabad iyo kala dambeyn iyo isdhexmar iyo ganacsiga intaba ka jiray in marka maamul la sameeyo Soomaaliyana laga fikiro dariiqa cusub ee ka dhow ee dawlad loogu heli karo dhulkana ay yeelan karaan maamul danahooda ka shaqeeya amnigooda ilaasha wixii heer caalam aan kaga xidhnayn iyo dawlad qaran mooyo wixii kale say u qabsan lahaayeen arintaas marka asaas labada ujeedada lahayd wayna waana la isu yimi oo marka lagu guuleystay marka magaalada halkan guri waa la isugu yimi dabcan markaas waxa soo fashilmay shirar kale oo markii hore goboladan gaarka ah wadano kii qarna uu ka mid yahay oo waa soo bislaatay moogtay marka waxa loo bislaa in wax guud la wada sameesto halkan waa la isugu yimi bal sidee dadkii wufuudi meeshan ka soo qayb gashay oo goboladan ka kala yimi kaalintii gaar ahaan ay ku lahaayeen gobolada Sool iyo Sanaago markaas rag xoog leh ka yimaadeen siyaasiyiin iyo hoggaan dhaqan uu ka yimi doodihii waaweynaa ee taagnaa bal halka inay dhaxgee horta shirku wuxuu ku bilowday koow markii hore madaxda SDF maca dhaqankoodii baa shiray kadib markay shireenna waxay iyagu kala aragti duwanaansho way jireen dawsaan xogtu ka helay ama ragad waraysateen iyaba ay idin sheegeen kadib warqad casuumad ay soo direen markaas maxaa Cabdixaashi oo gudoomiyaha USP ah xagan buu jiraa fariintana uu hayaa madaxda dhaqanka oo Allahu naxariisto garaa Cabdiqani kamid yahay garaa Saleebaan kamid yahay garaa Abshir Saalax ugaas Cabdullaahi Ciise intaas oo iyaguna gobolka Sool ku sugnaa warqadii waa invitation ka loo keenay waxa kamid ah Axmed Cabdi Xaabsade oo markii hore ka qayb galay dhismihii maamulka Soomaaliya laakiin shirkii ugu dambeeyay soo khilaafeen oo markaa ka soo horjeeday hadii warqada la keenay shir baa laga gala aad baa looga dooday waxa la yiri waa la isweydiiyay aad baa loo dooday waa la wada hadlay dad dhanka laftooda joogay sida halkan ba ay uga jireen siyaasiyiin saddexdan gobol waqooyi bari in la dhiso aaminsanaa baa waxa jiray siyaasiyiin kale oo aan aaminsanayn kala go'a Soomaaliya laakiin fikir ah in waqooyi iyo koonfur laba maamulo oo federal labada waqooyi iyo koonfur in la sameeyo rag aaminsanaa dhinaca kale jiray oo iyaga laftooda dooda ka soo qayb galay oo laha arinta yeena ku degdegin maxaa ka soo baxaya yeelkeeda waa laga xoog roonaa runtii madaxda dhaqanka iyo madaxda siyaasadda ee dadkii meesha isugu tagay runtii wax isku raaceen oo si shir ah loo qaatay in laga qayb galo dhismaha kadibna waxa shirku laba heer buu ahaa waxa la isugu yimi shir wada tashi ah si casuumadii looga jawaabo waa la isu yimi waxaan isleeyahay bishii saddexaad meelahaas ama labaad dhamaadkeedii oo 98 bay ahayd shir wada tashi la isugu yimi shirka wada tashiga xataa waxa ku jiro ka soo qayb galay galgaduud degmada Caabudwaaq iyo Balanballe ergooyin kamid ah shirka hore way ka soo wada qayb galeen iyo laftooda asaaska hore iyo dhismaha Puntland ka qayb galkeeda qayb bay ka ahaayeen markii shirka la isugu yimi shirka waa la isku afkartay heshiiskii in la dhiso maamul Puntland waa la isku afkartay Sanaagna waa joogtaa markaa Sanaag waa joogaa Sool iyo Sanaag goboladan hadda shanta ah Boohoodle iyo erga ka socota galgaduud koonfur galgaduud inta markay isu yimaadeen oo la isku afkartay oo saddexdii urur siyaasadeed gudoomiye madaxdoodii SSDF USP iyo SNDU waxa kala hogaaminaya Maxamed Abshir iyo waxa joogay maxaa Cabdixaashi iyo Cali Ismaaciil Cabdigiir way jireen xataa rag odayaal war aan shirka bal Soomaali weyn ka dhigno way jirteen laakiin waa lagu dhamaa waa la isla qaatay dhismaha maamulka kadib markii heshiis go'aankaas uu dhacay waxa la go'aanshay guddi qabanqaabo in la sameeyo guddiga qabanqaabadu laba shay bay ka soo shaqeynayeen axdigii lagu aasaasi lahaa maamulka Puntland inay axrigu soo sameeyaan qodobka labaad kalena inay ergadii soo jaangooyaan marka dadku dad tolnimo
weligood intii dhulka alla abuuray wada joogay bay ahaayeen laakiin dad saami wadaag siyaasadeed ah oo shirar siyaasadeed hore iyo wax qayb hore iyo ma jirin waxyaalihii ugu adkaabay ahayd oo markii la isu yimi oo gudiyadii la keenay anigu kulay gudiga qaban qaada xaabsada Axmed Cabdi xaabsada kamid ahaa Maxamed Umar Xaash nin la oran jiray baarlamaanka Puntland kamid noqdo dhintay baa kamid ahaa Awil Samakaab nin la oran jiray Cabdiraxmaan Xaaji Ismaaciil Basiir baa kamid ahaa Ibrahim Yusuf Ali Koore badiba waan gargaranaya waxaan filayaa Axmed Xasan Bilaani ku jiray marka sideeba maxaa lagu qaybseebanu ergada maxaan ku qaybinaa markii dambe ergadii gobolada lagu sareeyay shantii gobol qoladii koonfurta galgaduud ka soo qayb galkii dambe xataa ergadoodii waa loo qoondeeyay kamay soo qayb galin ma qaansi kasta noqoteen marka waxa lagu sareeyay ergada gobollo shanta gobol iyo degmada Buuqoodle marka gobolada laftooda baaxadooda la eegayo waa marka dambe baarlamaanka laftiisa lagu salayn doono gobolka bari isagu inaanu goboladaas marka uu ka baaxad weyn yahay si gaar ah loo eego gobolka Sool iyo gobolka Cayn hadda la yahay degmada Buuqoodle oo tog dheer ka tirsanaa waan Sool ka tirsanayn iyaguna ergadooda gaar ah laakiin de way soo raaceen waxay ahaayeen isku qayb guud ba ka dhaxaysa laakiin ergooyinku habkaas ku dhisnaayeen way sameeyeen axdigiina wala soo diyaarshay ergooyinkiina wala soo diyaarshay 15 bisha shanaad waan filayaa inay ahayd in la isugu yimaado halkan la isugu yimid waxyaalaha runtii xusida mudan waxa kamid ahaa shirkan dhismaha Puntland cid caawinaysa ma jirto wuxuu ahaa shir rabitaanka bulshada iyo siyaasiyiintooda iyo dhaqankooda ku salaysan waxa kamid ahaa ergooyinkan ku jiray waxay jaangooyeen gudiga qaban qaabadu inta maalmood la joogayo iyo dhaqaalaha loo baahan yahay qof kasto ergaya lacag 500 kun baa la soo qaado oo kharashkii uu inta isticmaal lahaa waayo qolyihii runtii caawin lahaa oo qolyahan beesha caalamka oo arrimaha Soomaaliya oo shirka Boorama oo kale iyagu de dhaqaalaha ka geystay waa diideen waxaana ugu weynaay ka soo horjeedeen midnimada goboladan ay goboladan iyo dadka midoobayaan bay ka soo horjeedeen hal shilin kuma bixin annaga waxayna le annaga isku tashanana annaga dhisanana maamul bulshadu leedahay oo iyagu maalgeliyaan oo ninka ergiga ka qayb galay ama gabadha ergiga iyadu ay nolosheedii masaariifteeda soo qabto markii dambe uu dheeraaday uu ka duwanaaday dhaqaalihii uu sii socday wixii la helo kale waa la sameeyay deyn bayba noqotay oo ay dadka deegaanku ay lahaayeen markii dambe maamulku uu bixiyo bay noqotay laakiin asaaska hore wuxuu ahaa runtii wax qofku xataa isagu waxa uu ku baxayo kharashkiisa uu sito marka waxa way ka duwantay wax dad ka go'an oo qofku aanu isagu manfac ka rabin maalkiisa ku dhisanayo saasi ku asaasantay isjiid badan waa iska jiray runtii oo waa meel marka dambe siyaasadii ay ka timi waxaan hadaan rabaa inaan yar dib ugu noqdo dadka ay gobolada midoobayay wax culays amni ah iyo wax culays siyaasadeed kama jirin runtii dagaalada gobolada midoobayayna laba meelood ba dagaalkooda ugu dambeeyay gaalkacyo waxay ahaayeen iyo meesha la yiraahdo Ceergaabo labadaba heshiis ba laga ahaa goboladan waqooyi oo Puntland oo Buuqoodle ha noqoto ama Sool ha noqoto ama Ceergaabo ha noqoto Sanaag qolyihii SNMTD markay dagaalka hore socdeen markan heshiis nabadeed ba la gaaray heshiiska Ceergaabo kuwii ka horeeyay ilaa 19 markay soo galeen oo SNMT ay timi isla markii dalab nabadgelyo iyaga keenay shirkii Burcaal isugu tagay nabad baa lagu heshiiyay laguma heshiin maamulka iyo waxay sheegaan iyo goosashada iyo waxaas waa waxaan waxba ka jirin rag ka qayb galo hadda hatta codkooda ay waagiyaan Cali Khalifa goosashada kamid ahaa waa tuu ka hadlay way duuban tahay wax ma jirin waxaan uga jeedaa duulaan iyo dagaal iyo culays siyaasadeed ma jirin iyaga dadku xor bay ahaayeen cid walba taladeeda qolo kasta iyo gobol kasta iyo deegaan kastaana xuduudaha deegaankiisa iyo nabadgelyadiisa si qabiil u ilaashanay duulaan qabiil ma jirin maamul xoog leh oo cid qabsan karaya ama cid ku soo duuli karaya ma jirin maamulka Soomaaliland oo dhinaca xiga qolada xataa xagga iska xigana isaga dagaal sukeeyo ku jiray oo 19 ilaa 97 Burco Hargeysa kulli iyaga soo dilayo runtii marka
waxaan taa ugu noqonayaa dad xor ah oo cid walbaba taladeeda gacanta ku haysato deegaankeeda maamusho haysato wax deegaana iyo wax ulay siyaasadeeda iyo wax cabsi ah aanay qabin bay ahayn laakiin uu doonaya siday maamul u samaysan lahaayeen dawlad Soomaaliyeedna u raadsan lahayn arinta ugu weyn oo qoladaas goboladaas ka soo jeeda maadaama qolada ay dariska yihiin goosasho intay ku dhawaaqeen deegaamadii xuduudii waqooyiga ay ku doodayaan taa lidkeeda inay iyagu ka shaqeeyaan dawlad Soomaaliyeed inay ku shaqeeyaan oo de fikirka lama ahayn laakiin laba mabda oo siyaasadeed bay ahaayeen waxyaalaha marka ay lagu dhisay bay kamid ahayd laakiin de dhul iyo dad xor ah oo aan qolo walba dhulkeeda iyo dawladeeda deegaankeeda gacanta ku hayso bay ahaayeen sidaas shirku ku bilowday